السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal waa salaamantii dhammaan. waa ibraahim xaashi axmed. waxaan rabaa halkan inaan idinkugu soo gudbiyo insha allah qiso cajiib ah oo aada u xikmad badan. nin u dhashay wadanka ingiriiska ayaa u yimid nin muslim ah, wuxuuna weydiiyey maxay diintiinu idinkaga mamnuucday inaad dumarka gacanta ku salaantaan. maxay diintiinu idinkaga mamnuucday inaad dumarka gacanta ku salaantaan. ninkii muslimka ahaa ayaa inta uusan su-aashaas ka jawaabeyn isagana su-aal kala weydiiyey ninkii gaalka ahaa, wuxuuna ku yiri gacanta ma ku salaami kartaa boqorada ingiriiska queen elizabeth. ninkii ayaa ku jawaabay maya, dad qaasa ayaa loo ogolyahay inay boqorada gacanta ku salaamaan. ninkii muslimka ahaa ayaa dhahay haddana dumarkayagu waa boqoro oo kale, boqoraduna uma gacan qaadaan nin ajnabi ka ah. ninkii jawaabtii wuu ku qancay, haddana su-aal kale ayuu weydiiyey. wuxuu yidhi maxay dumarkiinu u daboolaan dhammaan jirkooda. ninkii muslimka ahaa ayaa dhoola caddeeyey, kadib wuxuu soo qaaday 2 weel oo macmacaan. ku jiro. kadib mid ayuu furay, midna sideedii ayuu u daayay. cabaar markay yaaleen ayuu haanta qashinka ku riday, wuxuuna weydiiyey haddaan ku dhaho 2 macmacaan mid qaado kee qaadan lahayd. ninkii ayaa ku jawaabay mida daboolan ayaan qaadan lahaa. ninkii muslimka ayaa dhahay sidaas aad u dooratay ayaa allah subxaanahu watacaala u dooray dumarkeenu inay xijaabka xirtaan si loogu garto oo aanan loo faduulin. ninkii ayaa jawaabtaas haddana ku qancay, wuxuuna weydiiyey su-aal kale. wuxuu yidhi waxaad i tustaa allah haddii uu jiro. ilaahay aad aaminsan tahay ninkaagan muslimka ahow, haddii uu jiro bal i tus. ninkii muslimka ahaa ayaa dhahay qoraxda fiiri. ninkii ayaa ku jawaabay ma fiirin karo, waayo qoraxda indhahayga ayay wax gaarsiinaysaa. ninkii muslimka ayaa haddana dhahay haddii aadan arki karin allah subxaanahu watacaala wuxuu abuuray oo qoraxda ah, sidee u awoodi lahayd inaad aragto kan wax abuuray oo allah subxaanahu watacaala ah. ugu dambeyntii ninkii ayaa gurigiisii ku marti qaaday ninkii muslimka ahaa, wuxuuna siiyey canab. ninkii muslimka ahaa markuu canabkii cunay ayuu u keenay koob khamri ah. waxaa koobka khamriga ah keenay ninkii gaalka ah. marka hore wuxuu siiyey canab, markii canabkii cunayna kadibna koob khamri ah ayuu u keenay. ninkii muslimkaha uu ka diiday inuu cabo khamrigan. ninkii ayaa weydiiyey asoo yaaban, sidee ku diideen haddaad muslimiintihiin khamriga haddana aada u cuntaan canabka idinkoo og in khamriga uu ka yimid canabka. ninkii muslimka ahaa ayaa dhahay gabar ma leedahay. ninkii ayaa ku jawaabay haa waan leeyahay. ninkii muslimka ayaa haddana weydiiyey gabadhaada ma guursan kartaa. ninkii asagoo yaaban ayuu yiri maya. ninkii muslimka ayaa haddana yiri subxaan allah, gabadhaada hooyadeedna waad guursatay, iyadana ma guursan kartid adoo og inay gabadhaadu ka timid xaaskaaga. ninkii gaalka ahaa sidii ayuu ku islaamay. wabilaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.